كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعشركي لaba boqol iyo soddonaad qeybtii shanaad ee khaladaadka barbaarinta waxaynu ku guda jirnaa kontonkii hab ee ubadka aynu u dhisanay kalsoonida naftooda. Waxaynu maanta soo qaadan doonaa 14 qeybood ee ugu dambeeya. waxaynuna ka bilaabi doonaa qodobka 37 marka loo dhisi karo ubadka kalsoonidooda. waxaa ka mid ah baalaalfati intibaahu tiflika limadaahiri ljamaali fi tabiica. ilmaha markaa waa maxay marxaladaha ay ku jiraan. weliba waxaa la marxaladaha markay shalaan 4 sano jiraan oo kale ama 5 sano meelaha ay jiraan, waa inuu ilmuhu uu helo waxyaabaha indhaha ama indhahooda markaa maxay macnaha indhahooda u roon markaa waxyaabaha indhahooda u roon oo qalbigooda u roon inay daalacdaan oo marka ay arkaan. waxaa ka mid ah waxyaabaha markaa naturalka ama iska dabiiciga markaa natureka ah, dhirta ha noqoto, ubaxyada ha noqoto, kalarada kala duwan marka ha noqoto, in ubadku waxyaabaha ay eegaan ay aada u fiican baa la yidhaahdaa. sidoo kale waxaa la yidhahdaa waxyaabaha ubadka qalbigooda u roon oo qalbigooda ay macnaha ku xasilayaan, ay ku degayaan in la sameeyo baa la yidhahdaa weeye. waxaa la yidhahdaa waxyaabaha ahbata daraasaad, macnaha daraasaadka ama masaajidada u dambeeya waxyaabaha hadda ay xaqiijiyeen wax ka mid ah hadda ay ogaadeen. ubadku markastoo guriga ay joogaan salaan qur-aanka ilaahay subxana watacala marka waxa uu ka baxayo ay dhegeysanayaan ama u daarayaan waxyaabaha aadka u dejiya weyba hadda baa maxay ayaa la ogaaday markaa. ilaahina subxaana watacala intaasna ka hora maxayo bay noo sheegayo alaa bidikri illaahi tadma-inu lqulub uu yihi markaa. waxyaabaha dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay ayaa markaa qulubtu waa maxay ay ku xasishaa markay noqoto ubadka waxa indhihiisa u roon markuu da-da 4 sano 5 sano meelaha ay ku jiraan waa inuu beeraha iyo baakiyada iyo meelaha yaryar maxay xayawaanadu joogaan oo kale iyo ubaxyada iyo waxa indhihiisu ay arki karaan. guriga markuu yimaadana waa in guriga iska degan yahay hadalkii ilaahi subxaana watacaala, hadalkii rasuulka oo maxay lagu dhaxayo markaa. qodobka 38 waxa weeye baa la ismaxi diflika an yudaaciba alxayawaanaat duyuur sagiira. ilmaha waxaad u ogolaataa isagana baa la sidoo kale iyada meesha ku jirta inuu xayawaanada yaryar iyo shimbiraha yaryar waxyaabaha waa maxay inuu iskala ciyaari karo markaa. isaga markaa waa maxay weliba de samaynayaba lutf wa diqati maca haddii waxyaabaanka isaga markaa weliba ilaalinaya oo waxba aan gaarsiinayn inuu markaa la ciyaaro hadduu heli karo markaa wala joogo iyadana waxa la u sameeya markaa. siyaaba marka u dhisi karna waxaa ka mid ah baa la akhbiri difli kaannaka tarfadina suluuki ilkhaad. macnaha haddii ubadku ay khalad sameeyaan oo kale inaad u yar sheegtid inaad waxa ka yar xun tahay oo inaan waxaas aan yar fiicnin oo kale, laakiin aad u aamusin oo maanta markuu khalad samayso isagu waa maxay aad biritan waa maxay aanad wax u soo qaadan oo kamaad ku xanaaqin, laakiin u yar sheeg waxaas inay khalad tahay. ka afarsanaad waxa weeye baa la akhbiri diflika bixubbika lahu. ilmaha waxaad u sheegtaa inaad jeceshahay markaa u sheeg inaad markaa waa maxay aad jeceshahay u sheego. waxaa la markaa qalbi adayga iyo kakanaanta iyo macnaha maxaa iska ilaali markaa hadbuu wejigaaga hadday noqoto hadday camalkaaga noqoto wax kastaba ilmaha qof adag yaal markaa waxay ku arkine markasta waxaa ku tirada anigu hoya waa maxay oo ku jecelahay marka adduunkan kugu jecelahay markaa. ka 41 waxa weeye waa laba ilami ana diflika laysa ladayhi niyatu bilkhada. waxaad ogaataa baa la yidhaahdaa ilmahani khaladku samaynaya wax niyadiisa ka yimi maaha, macnaa isaga niyad ahaan kama aha khaladkan samayn markaa, balse maxay ka tahay waa yarida marka uu yar yahay ama waa maxay ilmaha waa maxay ilmaynu ma leenahay saas weeyo taasaa markaa keenay wax niyadu u samaynaya maaha, niyadiisa kama aha. ka 42 waxa weeye baa la yidhaahdaa laa tuwajih lidiflika lawma biistimraar. macnaha ilmaha canaanta joogtada ah ha ku wajihin markaa ood ka daynaysaa waayo waxaa jirta xiliyo markaan la canaanin karinba. hadduu salaan ilmihii 2 sano u horeeya iyo 3 sano u horeeya uu jiro oo kale iyo kaadii ka soconayso oo kale iska matagay oo kale xiliyahaas oo kale lama canaanin karoba. wixii soo harina waa maxay markaa waad ka ilaalinaysaa markaa. ka 43 waxa weeye baa la yidhahdaa laa takdibi calaa diflika walaa tacdiihi bishayin laa yumkinu laka alwafaau bihi. ilmaha markaa been ha u sheegin markaa waxaanad markaa u oofin karayn aan u samayn karayn ha u sheegin marka waayo ilmaha qalbigiisa markaa waa maxay ayay markaa saameyn ku yeelanaysa marka waxaa la kalsoonidiisa oo wixii aad awoodi karayso ilmaha runta u sheeg marka. runtaasi ama ha macaanaato ama ha qaraadhaato
runta saa ugu sheeg marka wixii aad waxaa ma samayn karo way maxaa ma awoodno way insha Allah markay noo suurto gasho baan kuu soo qaadaya baan kuu samaynaya hasaad ugu sheegaysaa marka qodobka 44 waxa weeye laa tanhari diflika walaa taqsi calayhi maca quduumi diflin jadiid ilaahay haddii uu markuu ilmo kale kugu arsaaqo oo ilmo kale markaa uu ku siiyo ha karhin markaa macnaha waa maxay ilmaha kale inuu isagu karho oo kale ama adigu markaa maxay adiga ka haysto ha samaynine bal waxaad samaysaa baa ilmahan ka ku tababartaa kan isaga weyn inuu yaxmiluhu markaa macnaha inuu qaadi karo ilmaha kale markaa mas'uuliyad samayn karo ilmo waalidka ka yar arkayso adduunka inuu maxay ku soo dhaweeyay markaa inuu sameeyo ilmaha yar cusub labadiin adduunka ku soo dhaweysaan sameeya baa Allah qodobka 45 waxa weeye baa Allah musaaxabatu tifli wal la'ib ma'ahuma in ubadka markaa maxay lala saaxiibo ilmaha maxay inaad saaxiib ka dhigatay wax aad u fiican weeye marka ilmihii aanay ku arkin wax la dadka nolosha caadiga qof marka aad saaxiib tihiin marka qaar inta ka soo tagtaan ba walaalo noqotaan saaxiibka ilmaha awaama wax laga yaabaa walaalka ama walaashaan inta waalidnimada ka soo tagtaan ba saaxiib noqotaan taa mid la mid ah ubadkaaga adiga hooyo ama aabbo wataa inaad ka soo tagtaan ba fiican baa leedo waa saaxiib noqotaan marka ka 46 waxa weeye baa la idkhaalu sururi wal farahi fi nafsi الطفل markastaba ilmaha naftiisa inaad marka aad gelisid ku abuurtid baa leedahay farxad marka aad gelisid marka iyo suruur marka waa goorma soo gelinaysaa marka waxa uu sameynaysaa baa leedahay farxadda ubadka macnaha haday hadiyadii haday noqoto dad la ciyaartid hadii marka hadalada fiican ku tiraahid waxaasna waxa kamid tahay siyaha ubadka marka farxad marka naftooda marka aad ugu abuuri kartid marka ta kale waxa weeye baa la 47 درع التنافس بين الأطفال معناها isbarbar dhiga cidka markaa maxay albarbar dhigtay kale kana ka fiican kana sidaan ma maxay markaa maxay wad ka deynaysaa bal waxaad sameynaysaa mukaafaa'atul faiz bi shay daruuri marka hadii markaa wax ku fiicnaado kale ama hadii tartan la qabto oo kale ka ugu sayxsi marka intii kale markaa iyagana markaa maxay haniyad jabin markaa كافرتني هذا هو يبغى تشجيع الطفل باستمرار وهذا كمين واحد يحكم إذا إن المها ديرجلين هذا مركا يتشوكتو وهاتو مركا يتشوكتو ونقطة كافرت هذا هو يبغى الله يسوي كاسب بلمدي هاي المدح والثناء على أفعال الطفل المو أكشن إسكام فعله وسمينا يمركا إن المركا وامحات كو أما أنت المركا ولو أفعاش الدفي عنو سمايو إن كل ديرجليش المركا wixii khaladana marka asluubti khaladkan aad u sheegtay marka inay khalad tahay ka kontonaad ee ugu dambeeyay waxa weeye siyaabaha ubadka marka loo dhiso kalsoonidooda mujaalasatu dhifl lil kibar ubadku marka waa maxay inay la fariistaan oo ay la sheekaystaan oo ay la joogaan oo ay waqti la qaataan dadka marka waaweyn marka marka dadka waaweyn marka la socdaan ama ay la fariistaan iyaguna intii ficiladii ama waxyaabo ciyaarku ay sameyn jireen way ka soo korayaan marka maskax ahaan marka waa maxay ay marka u korayaan marka halka waxay noogu dhamaatay konton ka naseexo waxa kamid tahay konton naseexo waa maxay ubadka loo dhisi karo kalsoonida marka waa maxay naftooda marka sidoo kale waxay noogu dhamaaday qaybtii shanaad ee barnaamijka barbaarinta ubadka insha Allah taala waxaanu bilaabi doonaa qaybta ugu dambeysay barnaamijka barbaarinta ubadka ee lixaad 10 ku xiga insha Allah wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam